Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran wanaag show. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa sheeko aad u xigmad badan. Xigmadaas oo ku caanbaxday xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa. Fadlan inta aanan guda galin subscribe saar YouTube-kan, gabaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba oo aynu soo gelino aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. Sheekadan waxay u dhaxaysay nin maskiin ah iyo marwo. Marwadii ayaa waxay reerkeeda u karin jirtay rooti subax kasta. Waxay ku dari jirtay hal xabo oo dheeraad ah oo loogu talagalay qofkii wadada maraya, waxayna u gelin jirtay qaanad yar. Waxaa subax kasta wadada soo mari jiray markii ay rootiga dhammayso nin geed qorow oo shaqadiisu u socda. Rootigana qaanada ayuu kala bixi jiray, wuxuuna ku dhihi jiray isagoo hoos u hadlaya, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa. Sidaa ayaa maalin kasta dhici jirtay. Ninkii geeda qorowga ahaa wadada ayuu soo maraa, rootiga wuu qaataa isaga oo erayada halhees ka dhigtay. Marwadii ayaa ka carootay hadalka ninkii oo ku celceliyay maalin kasta ee istiri, xitaa mahadsanid imuusan dhihin, muxuu kala jeedaa erayadaas. Waxay go'aansatay inay rootiga sun ugu darto. Markii ay damacday inay rootiga inay sumayso qaanadana u geliso, gacanteedii ayaa jaraysay oo isla yaabtay. Markaasi ayay rootiga sumaysnaa dabka ku tuurtay oo rooti kale soo qaaday, kadibna qaanada ayay u gelisay. Ninkii geeda qarowga ahaa ayaa subaxii imaaday, wuuna qaatay rootigii isagoo erayadii leh sidii ay caadada u ahaydba. Dhanka kale, marwada waxaa in muddo ah ka maqnaa wiil ay iyadu dhashay oo aad u jecleed inay mar-uun hesho isaga oo nabad qaba. Habeenkii ayaa albaabka la soo garaacay. Markii ay furtaba waxay aragtay wiil duruufi ay ka muuqato albaabka hor taagan. Markiiba way qaraacantay oo waxay xaqiiqsatay in wiilkeedii uu yahay. Isla markiiba wiilkii ayaa ku yidhi, hooyo, waxaa mucjiso kula noqotay inaan halkan taaganahay. Fogaan badan ayaan soo jaray, wadadana baahi ba'an ayaa igu qabatay oo waxaan ku sigtay inaan dhinto. Laakiin nin geeda qorow ah ayaa hal xabo oo rooti ah i siiyey oo igu yidhi, maalin kasta rootigan ayaan cunaa, maanta adiga ayaa iga baahi badan ee hoo qaado. Markii ay erayada maqashay ayay wejigeeda isbedelay oo murugootay. Waxayna ogaatay rootiga ay maalintaas sumaynaysay inuu wiilkeedu cuni lahaa haddii ay qaanada u gelin lahayd ninkii geeda qorowga ahaa. Laakiin ma dhicin. Waxayna soo xasuusatay hadalkii ahaa, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa. Waan hubaa inaa wax badan aad ka faa'iiday sheekadan xigmadda ku saabsan, ee xigmadeedu ay ahayd xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa. Fadlan haddii aad ka heshay mowduucyada aan kuu soo gudbinin oo aan kula wadaagayno, fadlan subscribe noo saar YouTube-keena, commentiga like, share-tana hanaga hilmaamin. Mahadsanid.